waxaan nahay bani aadam, ma nihin kuwa ceeb ka saalima, waan dabaawnaa, waan noolnahay, waxaan isku daynaa inaan wax samayno, waxaa naga dhaca qaladaad, waan kufnaa, waan niyad jabnaa, dhaawac baa ina soo gaara, haddana kor baan isku qaadnaa, dib baan u sara kacnaa, mar kale ayaan isku daynaa. waxaa sii wadnaa inaynu wax baranno, koriimo ayaana ku jirnaa. waxaa intaa oo dhammi uga mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey fursadda qaaliga ah ee nolosha. noloshu way gaaban tahay, waana waqtiga u dhexeeya dhalashada iyo dhimashada. u shaqayso daarta dambe, ka qayb qaado bilicda iyo horumarinta deegaanka aad ku nooshahay, u naxariisa xayawaanka, caawi dadka, xiriiri qaraabada, u noolow si fudud oo aan kibiri isla weyni ku dhehnayn. ha u gefin cidna, ha dulminin dadka, ha dhaawicin qalbiyada ku jecel. ma garanaysid xilliga aad dunida ka tegaysid, balse waxaad samayn kartaa inaad wax fiican ka tagto. ugu yeer dadka wanaagga si xigmadi ku jirto, u noolow noloshaada marmarsiya la'aan, u jeclow si aan shalayto lahayn. goortii nolosha ku siiso 100 sababood oo aad ku oohin karto, tus nolosha inaad haysato 1000 sababood oo aad ku dhoola caddayn karto. u wajah wixii ku soo dhaafay qoomamo la'aan, u maarey waqtiga hadda haysato si kalsooni leh, iskuna diyaari mustaqbal cabsi la'aan ah. xajisa iimaankaaga, iskana tuur baqdinta. maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ganowsato inaad mas-uul ka tahay noloshaada, aadna iska joojiso cudurdaarka iyo cabsida. cidna aadan cambaareen, ceeb iyo ciladna aadan qofna u raadin. noloshu waa safar, adiga keliya ayaana ka mas-uula inaad tayeyso ama taladaada xumaato oo tubta qaldan raacdo. ka faa'iidayso fursadda qaaliga ah ee nolosha. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.